عاو هدوينا كاين در إلهي درجو بنتو موسى الله راعي وايد بلاي دبا اسكو تغتay islaama buurburoona sariba dajiyo buuni oo baal orday wadka oo isna ninka la dhaho baal cararay yamayu wax aan la garanayn oo farabadan odayga wax kale ku gartay islaama loo bilaabay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضوض يا هالكا ديقلو سعوتان وبيجكا رسميكا يا أحمد عرب برنامج كينن وحنو كفلان قيدونا حسبيكا معارضكا كلمية محمد كاهين يا هايستا موتكا هايستا مبوني با هايستا بسم مدحوينيه هوري تلada Soomaaliland hayay Muuse Biixi Cabdi barnaamijkan ayuu daawad yaal ku falanqeyn doonaa waxa garabkayga bidix taagan xog hayay hore ee madbacada qaranka ee xisbiga muxaafidka ah ee wadani Cabdiraxmaan markii hore soo dhawow xisbigii kulmiye ayuu barnaamijka ku soo qaadan doonaa waxa jiray culays badan oo odaygii Maxamed Kaahin haysta maxkamad ayaa la galay waxa la doonayaa in laga qaado gudoomiyanimada xisbiga laga qaado bal barnaamijkaas aynu eegnaa iyo falanqaadayna way Axmed wad mahadsan tahay waynu ognahay muddooyin ku dambeeyay waxa soo noqday khilaafka labada garar ee u dhaxeeyay xisbiga kulmiye kaas oo gaaray heerar kala duwan mar buu gaaray xarunta la weeraro mar buu gaaray warbaahinta hadallo kullayso Mariyo Muuse Maxamed ay wada hadlaan mar buu gaaray marxaladii imkan wuxuu maraya dacwad guddiga ururada iyo axsaabta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa maanta doodaas horta dadku waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan horta odaygii Maxamed Kaahin haysta odaygii Maxamed Kaahin balaayo dhabas ku tagtay islaama buurburoona sariba dajiyo buuni oo baal orday wadka oo isna ninka la dhaho baal cararay yamayu wax aan la garanayn oo farabadan odayga wax kale ku gartay islaama loo bilaabay gabigiisiiba gawdhe labada gelin idaacada lagu shito waa record TV yar waa memory ku dhugaadha farabadan ba ku baxaysa waxaas oo dhan waxa looga dan leeyahay inuu cararo xisbiga hoggaankiisa siidaayo dhulka dhigo laakiin ninkani waa nin ruushka ka soo qadeeyay Mareykanka ka soo casheeyay waa nin jamhada waa nin dawlad dhan oo adduunka libaaxa Afrika loo yaqaanay kadib la dagaalamay marka nin islaama saribada jooga cayri karaya asma karama horta cid isku dhow yihiin maanta haysata ee odayga lugaha ku taaga haysata waayo horta Maxamed Kaahin Axmed ninka la dhahdo haday siyaasaddu gobonimo leedahay oo gob siyaasadeed laakiin waxaad wada maanta haysta ciqaab siyaasadeed ciqaab siyaasadeed baa haysta kale fursadii siyaasiga uu bixiyay ayaa waxay sababtay inuu ciqaab siyaasadeed ku noqdo wuxuu bixiyay fursado badan koo waxa ka saaxiibkii Muuse Biixi cid ugu badan imika barnaamijkan tabada ka wad oo Muuse Biixi Cabdi cid alla cid doonto ugi islaamaha hadlayaan macna sameynaynin buuni shaqada ku soo soo guriga Muuse Biixi shaqada ka soo shaqaali ninkan yara miskiinka wadka loo yaqaan golaha dhexe haysteen waa nin uu la doonayay in Kaahin laga horkeeno marka la soo koobo warkan ninkan ciqaabka siyaasadeed haysta waa saaxiibkii oo caasi siyaasadeed ku noqday wuxuu kala soo shaqeeyay xukuumaddiisii xukuumadda ma aha ilaa ay qaaxul soo shaqeynay si dhaweyd wuxuu ahaa laf dhabarka ugu taagan wasiirka arrimaha gudaha ahaa garanaysan wasiir dhan oo arrimaha gudaha ee Soomaaliland marxalada dagaal baxada ku soo furmay oo weyn muxuu ku haystaa Maxamed Kaahin Muuse Biixi wuxuu kala soo tabaashay marxalad kasta oo qaraaray imika qura maaha markii dawladdiisa ilaahay timi kulmiye wuxuu kulmiyeeyaa ina Kaahin in adeerkii baa talinay talada dalka qabtay Silaaya Muuse iyo Silaaya way isku dhaceen ina Kaahin wuxuu raacay Muuse ina Kaahin wuxuu la go'doomay Muuse ina Kaahin wuxuu kaba beelay Muuse waa kii miis garaac ilaha xisbiga lagu dul maamuli maayo markii Muuse shaanida tuuray raanigu la tuuray isagoo raanigu la tuuray dariiq kasta oo Muuse tuurta uu qaadi karo kursiga uu ku keeni karo ilaa uu geedka madaxtooyada saa uga soo tuuro madaxweyne noqday ee kan uu la shaqeeyay markii doonay arrimaha gudaha dirsan arrimaha gudaha wadagta waa wareeriso Muuse odayga wuxuu ugu talagalay inuu dhikar ku rido oo ka takhaluso arrimaha gudaha wuxuu ugu talagalay markii hore inuu daalo oo aan shanta daba ku soo noqonin caaw haddii Kaahin dar Ilaahay dargu dhinto Muuse loo raacay waayo تيسا كو حرامي سنه مرو اريما غداو دو يمرو اسلامها سربته و بلميه بول و بلميه يعني ابال بو سوغي ابالكيس و نوقدي ان لو جريي و نوقدي ابالكيس ان لا راهدو ما geedid ina tartantaadu abaalkiis wuxuu noqday in la raado reerkaaga waa kii wadan iyo ka raacay orod naga tag abaalkiis wuxuu noqday wanaagii iyo saaxiibtinimadii iyo halgankii shalay uu soo galay ee arrimaha gudaha ugu qabtay ee dagaalada ula galay ee dhacdo kasta ula qaybsaday ee shalay Maxamed Kaahin in Silaaya uga tagay ee wax kasta uu sameeyay ay noqotay maanta in la yiraahdo laga xaraamaysto oo lagu shubaraaqlay la hado saribada kaga soo kaca oo buuni oo adna star oo heblayo taayib gub oo islaam loo balay
marka maxamed kaahin waxa haysta ciqaab siyaasadeed oo fursadii saaxiibtinimo ee uu bixiyay maxamed kaahin marka soo looga waa siyaasi aan godob ku lahayn Soomaaliya waa siyaasi aan godob ku lahayn dagaalkiisa hal dambi baa dagaalkiisa looga hayo dambiga qura ee maxamed kaahin dagaalkiisa looga hayo maxaad musadixi kale ka qabsan weeyay taariikhaaga u tartami weey isla tanaasul saaxiibtinimo sameeyay tanaasulkiina ma tatabay keentay هذا كله عقاب سياسي والله كايست وهالكاس مركب هذا بوني نحن دوني إنه نقدر سوق دنيا حسب نحن كدوني هذا بوني الله وحده كدوني إما كقرمين بوني وحده دوني الإسلام بوربورة صلى الله عليه وسلم بوني مدارات بيسكوا جامين حتى شقينا الله دربوا هاي وحنا هاي أفياك بيش السبير أول كون مسبير أول سلطان بكير كله بوني حتى حسبك وطني تتخيع عين تتكلم وقت كم كم ده وصلت حرارة وحسبك وطني كل مية كشرت أيوة هذا بعطى كويس ونكي فرا ملك الدرسين ده فوق عشية هذا كشلا ملك وسأقول وقي قبول له وقد مول وايس كون عشلت لو صوت وعد حماده كل مية عد كستوعن وعشلت لو صوت بدنا لقط الطهارة مثل ده وحلا حماي مركب محمد كاين أحمد وني وين وضيع ومشاهد وني هالجماعة وني تاريخ له أما الطوس يجري ياك كحيس أما وحكى لك كحياة كل مية إسقى إسكاله وتحل سيران يقولس مركب ورثة سلام بولس أسد حسب الله صدس ولا داعي والرهاب موسى بحواه سيران يودس ولا داعي هذا وودس وقوليست موسودس وقوليست هذا وودس موسى وداعي هلا يقول موسى لكن توت كوسيدي إن عبد الرحمن أدو حسب المعارف وضني بتكتشف ها حاكم مية كان عملات الله كان صدق الله كل مية فلقين عمل أنا عمل الله من صهر مرة حسبي وضني بتكتشف ها حكم هي هرا هاي ما تلكمتي وانا هاجر حكم هي هرا هاجتي ما أنت إن حسبي كلفة قيسو حاكم كان وحنا كان لا روح أنا وعمل يا يقول عيار العيارية ما يقبل هذا ما يلمي وش يقول صهر برا يا واحد كتير هذا هو هاللون نوريه marka anagoos nin baa islaantiisi laga dib tina waxa hebel islaanta maxay ku laga wuxuu saddex qodob ay soo kay galay islaanta oo saarada taqaani anigoo meel siba taagnaa laba iyo si xun oo joogay buu saddexaas soo islaantu laga dib anaga waa bilaa amal ahay iyo ciyaartu ay si xun soo galeen baa horta iyo dee waxa noo muuqda shalayna marxataan ku ay maanta marxataan ku marago furbaarey islaam oo marag ee leeyahay gobonimada maxamed oo ka marxatina meesha la isoo maraan ka marxaatay shalay anu 17 ragi Muuse dhisay baan maalintii dhowtay waxyaabaan uga tagay wax kamid maxamed kaahin muxuu hankiisa u raadsan way maxaad kaahin markii Muuse soo noqonay oo dadku soo yaacayeen oo la soo socayna ba kala soo ordayeen soo yaacayna aka dhishii kale laga soo afuufay barta aan deerka jawiga marka inaad areen ciyaarta xun ay ku soo galeen garoonka iyo amal la'aanta ku miisu kaligiis